kountiyada dalkani Kenya oo gaaraya 47 county inta badan waa la shaaciyay natiijada rasmiga ah ee musharaxiinta ay ku kala guuleysteen waxaana u badan kuraasta barasaabka xildhibaanada iyo kuraasta dawladda hoose natiijada rasmiga ah ee deegaamada kuraasta badan waxa ku guuleystay xisbiga URB oo hogaaminayo Mr Ruto gudoomiyaha guddiga doorashada iyo xuduudaha Axmed Isaaq Xasan oo saaka shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay shaacinta natiijada rasmiga ah sababta ay u dahday in ay qalabkii tiknoolajiyada ee loo adeegsanayay doorashada oo cilad ku timid natiijada doorashada ee magaalada Mombasa ayaa qalabkii lagu tirinayay oo cilad ay ku timid waxa saaka loo qaaday magaalada Nairobi si halkaasi tirinta dhameystir loogu sameeyo gobolka waqooyi bari ee dalkani Kenya ayaa wuxuu ka kooban yahay 3 county waxa loo qoondeeyay in ay ka soo galaan 6 xildhibaan oo degmo walba uu ka imaanayo hal xildhibaan maadaama countigiiba uu ka kooban yahay 6 degmo 18 xildhibaan ee gobolka waqooyi bari ee dalkani Kenya ka imaan lahaa badana waa la shaaciyay natiijada rasmiga ah xildhibaanada waxa ku jira kuwa mar labaad dib loo soo doortay countiga Garissa waxa si rasmi ah loo shaaciyay 4 xildhibaan degmada Garissa Township waxa dib loogu soo doortay xildhibaankii hore ee Aadan Barre Ducaale degmada Faafi ayadana waxa dib loogu soo doortay xildhibaan Ilyas Barashil oo 10 sano ka hor xildhibaan ka ahaa degmadaasi Wajeer County ayaa ayadana 6 xildhibaan la shaaciyay ayadoo 2 kamid ay yihiin xildhibaanadii hore countiga Mandera ayaa iyaduna la shaaciyay 3 xildhibaan oo kamid ah xildhibaanadii guuleystay Maxamed Ciise on Cable TV Garissa